يوسف حسين جمعال المدلالي oo in muddo ah ku noolaa Qaahiro waxna ku soo bartay Masar ayaa loo magacaabay gudoomiye gobolka Bandir ahna duqa magaalada Muqdisho xilkaasoo la qaaday gudoomiyahaasii ka horreeyay Mugaab Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale waxaa la bartay doorashadii Xasan Maxamed Jimcaale wuxuu hogaamiyay ololaha isagoo idaacadaha iyo gudaha warbaahinta xisbiga madaxweynaha Peace and Development Party ee loo soo gaabshay PDP waxa uu Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale u ahaa xogaayihii arrimaha gudaha iyo xiriirka caalamiga intii uu xisbiga xogaaya ee xiriirka caalamiga u ahaa isaga iyo mas'uuliyiin badan oo xisbiga ka tirsan waxaa tababaro iyo iskaashiyo kala la yeeshay xisbiga hay'adaha waddanka ee Turkish AK Party Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale waxa uu jagada gudoomiyaha gobolka Bandir iyo duqa magaalada Muqdisho u codsaday markii loo doortay madaxweyne Xasan Maxamed September 2012 jagada waxaa uu horeeyay Maxamuud Axmed Nuur Baadi oo loo garan og tarsan jagadaasi sii hayay July 13 2012 oo ay Xasan Sheekh ka hor in Xasan Maxamed Xuseen Mugaab oo la magacaabay duqa magaalada Muqdisho iyo gudoomiyaha gobolka Bandir bishii Febraayo 2014 Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale waxa uu ka soo jeedaa gobolka Bandir wixii ka dambeeyay 1998 waxa uu deganaa magaalada Qaahiro ee caasimadda dalka Masar ilaa iminkaas ay ku noolaan qoyskiisa waxbarasho waxa uu ku jiray dalka Masar intii u dhaxaysay 1998 iyo 2006 isagoo ka bilaabay dugsiga dhexe Al Ashkar kadib dhamaystay 3 sano ee dugsiga sare isla Tanawiga ama dugsiga sare Ashar waxa uu ka qalinjibiyay jaamacadda dalka Masar American Open University 2006 isagoo ku takhasusay sharciyada Islaamka Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale waxa uu aad ugu dhawaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xisbigii isagoo noqday arrimaha gudaha iyo xiriirka caalamiga waxa uuna horkici jiray dibadbaxayaasha lagu taageerayo madaxnimada magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa mas'uul looga dhigay waxaan dhiganay in ka badan 2 milyan oo qof adeegyada ay u baahan yihiin tirada ayay ka bateen waxaana hubaal ah in magaalada u baahan tahay qof hadal yar oo howl badan Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale waxaa xilligaas la magacaabay October 26 2015 la magacaabay duqa caasimadda Muqdisho sidaas la mid maanta ayaa la magacaabay gudoomiyaha gobolka Bandir ahna duqa caasimadda Muqdisho iyadoo xilkaas la qaaday Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish oo xilkaas hore u hayay